kulan wacan daawadayaal warbixinteena waxaan ku eegi doonaa ciidamo ka tirsan kuwa haram cad oo la geeyay deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka oo dagaal cusub ka dhex qarxay. waxa kale oo daawo doontaan ciidamada Jubbaland oo markan isku diyaarinayaan inay ka hortagaan ciidamada cusub ee dowladda ay geysay deegaanka Raskamboni. qodobadaas iyo macluumaad kale oo dheeraad ah ayaad ku maqli doontaan haddii la yiraahdo, balse saaxiibayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan channelka si aad u heshaan wararka iyo macluumaadka halkan aan soo gelino maasanadiin dhammaantiinba. aynu ku bilowno. ciidamo ka tirsan kuwa haram cad ayaa la geeyay deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. laba diyaaradood oo ay saaran yihiin ciidamada haram cad ayaa gilinkii dambe ee galabtay waxay ka degeen deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. waxaana halkaas loogu talagalay in ciidamadan ay qayb ka qaataan howlgal dhawaan la filayo inay ka dhaco qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. sidoo kale ciidamadan ayaa qayb waxay ka qaadan doonaan sidii dagaal culus ay ula gali lahaayeen hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maanta lagu doortay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. kolsi horreysay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tilaabo military oo ka dhan ah maamulka Jubbaland, waxaana ciidamo dheeraad ah ay geysay qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo diyaarado loogu qaaday magaalada Muqdisho. ilaa iyo 7 diyaaradood oo sida ciidamo fara badan iyo hubkooda ayaa maanta la geeyay ama laga dejiyay gudaha deegaanka Raskamboni oo u dhow magaalo xeebeedka Kismaayo. sidoo kale gelinka dambe ee maanta ciidamo ka tirsan kuwa haram cad oo ay saarnaayeen diyaarad isla markaana wato hubka culus ayaa laga dejiyay deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. kolsi horreysay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 2 diyaaradood ay saaran yihiin ciidamada kuwa gorgor iyo hubkooda waxa ay geysay deegaanka Raskamboni. waxaana la soo warinayaa in dhaqdhaqaaq xooggan xilligan laga dareemayo oo ka soconaya deegaankaasi, kaas oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana ujeedku uu yahay inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqa maamulka Axmed Madoobe oo haatan dowladda federaalka Soomaaliya ay sahayaan. Axmed Madoobe ayaa maanta lagu doortay magaalada Kismaayo, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay diidan tahay hoggaankan cusub ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo. dhinaca kale hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa amar degdeg ah wuxuu ku bixiyay ciidamada Jubbaland inay xilligan u dhaqaaqaan deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose si ay uga hortagaan weerar ka hor yimaada dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa markan qorsheynaysa inay weerar ku qaado hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maanta lagu doortay magaalada Kismaayo. khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha maamulka Jubbaland ee maanta lagu doortay Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markan waji cusub yeeshay. waxaana suuragal ah in ciidamada haram cad iyo kuwa gorgor ee maanta la geeyay deegaanka Raskamboni ay qaadaan dagaal culus, halka ciidamada Jubbaland markan amar lagu siiyay inay ka hortagaan weerar walba oo ka hor yimaada, isla markaana ay soo qaadaan ciidamada gorgor iyo kuwa haram cad, isla markaana hadda fariisin ka sameystay deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. laakiin saraakiil u hadashay ciidamada gorgor ee tagay maanta waxa ay sheegeen in ciidamada Kenyaatiga ay halkaas ka baxayeen ay halkaas ay la wareegi doonaan, balse ciidamadan waxaa loogu talagalay inay gacanta ku dhigaan hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. xaalka Kismaayo ayaa faraha ka baxay markan waxa ay u muuqataa in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso dagaal toos ah kaas oo ay la galayso hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, balse la arki doono halka ay ku dambeyn doonto xaaladda.